sheekh cabdimaalik sheekh muuse coldoon waa wariye weyn samafalacaan ah iyo sidoo kale sheekh khudbadaha jimcaha ka akhriya masaajid ka mid ah masaajidada Burco. waa inuu qofku isweydiiyaa maxaan ku dagaalamayaa, maxaan u dhimanayaa, ma shaydaan baan u dagaalamayaa mise Allah baan u dagaalamayaa? labadaa mid weeye, naftaadu waa qaali. sheekh cabdimaalik muuse coldoon laba habeen ka hor page-kiisa Facebook waxa uu ku soo qoray waxaan iskaga baxay magaalada Burco markii aan ogaaday in la xidhayo waxaana hadda joogaa buu yiri xilligaasi meel aan ku dareemay amaan. dadku waxay isweydiiyeen xagee ayuu cabdimaalik joogaa uu amaanka ku dareemayaa, ma jilib buu aaday? kuwa kale waxay lahaayeen wuxuu ku sugan yahay magaalada Buuhoodle. intaasba been ayay noqotay. sheekh cabdimaalik muuse coldoon oo ka soo hadlay arrinkaasi waxa uu yiri waxaan ku suganahay magaalada Bohol oo u dhaxaysa Xeelaf Weyn iyo magaalada Xudun oo ka tirsan gobolka Sool, waana kana isagoo ka hadlay arrimahaasi. bismillaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. ramadaan waa 24 sanadkuna waa 1446 hijriya, waxayna ku beegan tahay 24 bisha saddexaad 2025. magaaladii Burco waxaan ka soo baxay habeenkii ay Sabtida soo galeysay. sababtaan uga soo baxayna waxa weeye waxaan ogaaday in lagu tashaday in la xidho oo laygu hubsado jeel. markii aan dareemay amni darrada waxay igu kaliftay inaan habeenimo ka soo baxo. hadda waxaan ku suganahay magaalada Bohol. Bohol waxay ka mid tahay gobolka Sool, waxayna u dhaxaysaa magaalooyinka Xeelaf Weyn iyo Xudun. xudun bay u sii dhowdahay, waa nabad qab, waa ilaahay mahadi, bala ma jirto. waxaa jiray barnaamijkii khayriga ah ee kaalme kuwan oo aanu gacanta ku haynay oo hakad galay. barnaamijka waxaa furnaa oo aanu hawshooda wadnay galaal baa furnaa. galaalkaas waxay ahaayeen galaalka maxaabiista iyo dad kale oo dhiban oo xanuunsanaya, qaar dulmi sheeganayaan. intaasiba hakad bay galeen. waxaan rajaynaynaa marka ugu horeysa aanu nabadgelyo helno, aanu amni helno, inaanu halkii ka sii wadi doono insha Allah biidhnillaahi alkariim. runaantii dadka xabsiyada ku jira waa dad dhiban oo u baahan inaynu u gurmano. intaan halkan joogno waxaanu awoodi karno si aanu u awoodi karno waa u shaqaynaynaa insha Allah biidhnillaahi alkariim, maadaama aanu warkayda soo gaarsiinayno internetkiina aanu haysano. taasi waa taa. waxaan kaloo aan doonayaa inaan ku baraarujiyo waxa igu saabsan aniga oo ah cabdimaalik sheekh muuse coldoon. wararkayga iyo arrimahayga ku saabsan halkan baad ku ogaan kartaan. barahayga bulshada ee rasmiga ah ayaad ku ogaan kartaan. wixii aad meelaha kale ka dhagaysataan idinku baa ka mas'uulahay, idinku baa waxa weeye warkaas soo helay. warku waxa weeye waa kayga insha Allah. Allah idin barakeeyo. taana ku baraarugsanaada. tobankii dambe ee Ramadaan baynu ku jirnaa. ilaahay waxaan idinka baryayaa oo naftayda idinkaba aan Allah uga baryayaa inuu naarta inaga xoreeyo. ilaahay nagu daro kuwa uu naarta ka xoreynayo insha Allah biidhnillaahi alkariim. ha lagu dadaalo maalmaha haray in cibaadada la laabo, sadaqada la xoojiyo. khayr baynu isku ognahay. waxaad la hadlayay walaalkiin cabdimaalik sheekh muuse coldoon. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.